Filimkeena wuxuu ku bilaabmaa gabadhan lagu magacaabo Anna waana hurda waxaana kicinaya wiilkeeda oo la dhaho Jian waxaana hooyadii ku dhahaa hooyo baryahan waxay ku mashquulsan shaqo anna waxaan sameynayay training waxaana rabaa inaan ku guuleysto tartanka dabaasha waxaana rabaa inaad tijaabo iga qaado isagoo hooyadii u sheega in Anna maanta shaqaana aadin waxaana ku yiraahdaa hooyo waxay isku dhijinaysaa neefta ee kaalay tiri Anna way soo kacdaa iyadoo tira been u qabataa kadib waxay eegtaa daaqada iyadoo aragtay inuu roobdaayo waxaana aragtaa inuu daado badan sameeyay kadib iskuma sii hawsho waxaana bilowdaa inay samayso quraac Jian wuxuu ka daadiyaa waxay samaysay kadib waxa aragnaa inay la hadlayso hooyada taasoo ka wada hadlayaan cimilada maanta jirta kadib hal mar waxay dareentaa saqar iyadoo aragtaa biyo guriga soo geeya kadib waxay aragtaa in dabaqa meesha ka digantay oo ah dabaqa saddexaad ay soo gaadheen biyihii kadib Anna waxay ogaataa inaanay xaaladu fiicnayn waxay soo qaadanaysaa dharkeeda iyadoo ku guraysa shandad kadib waxa soo waca nin ay u soo dirtay kumbaniga u shaqayso isagoo uu sheegaya inay timaado dabaqa xaggiisa u sareysa kadib waxay soo qaadataa shandad yar taasoo ay ku ridayso daawooyinka wiilkeeda yar waxaanu timaadaa wiilkeeda ku jira armaajada isagoo ka cadhaysan hooyadii taasoo dhegeysan weydii maruu ku lahaa xalay waxaan ku riday sawre ee kaalay fiiri kadib way raali gelinaysaa waana kaxaysaa kadib marka soo baxda waxay aragtaa dadkii wada qaxaya waxayna doonaysaa in raacdo jaranjarada maadaama uusan jirin koronto taasoo ah inaan wiish la raaci karin waxaana arkaysaa jaranjarada oo xidha taasoo loo sheego dadkii dabaqa ka sareeya deganaa ayna rabin in loo soo gudbo waana sababta u xidhantay jaranjartu waxaana aragtay inaanay xaggan suurtagal u noqonayn inay marto dib ayaana uga soo laabataa waxaana kusoo dhacaysaa fikrad ah inay marto jaranjarada emergensiga yacni jaranjarada la maro markuu dabku kaco sidoo kalena xaggan waxay arkaysaa inay xidhan tahay waxaana bilaabaysaa inay korto si alaabta isaga gurto laakiin cagta ayaa u baxaysaa iyadoona dib u soo laabataa kadib waxay aragtaa ninkii loo soo diray ee securityga wahaa iyadoona u yeedha oo gacmaha u taagta isaguna wuxuu ku dhahaa waan ku arkaa waana kuu soo socdaa xaggaaga taagno kadib Anna hal mar ay gacanteeda ka weydaa wiilkeedii waxaana arkaysaa soo guri dadeed sii gelaya Anna way ka daba dhaqaaqdaa laakiin waxay aragtaa jir ku soo socda waxaana xasuustaa markii ninkeeda guwan ay galayeen shil kuwaasoo gaadhigu kula dhacay badda waxaana xagaa ku dhintay ninkeeda kadib firka wuxuu soo jeediyaa daaqada waxaana aragnaa inuu dadkii dhan qaaday kadib Anna waxaa qoorteeda ka baxaa daawadii waana ka daba tegaysaa laakiin biyaha ayaa hore sii kaxeeya kadib waxay raadinaysaa wiilkeeda waxaana aragtaa isagoo miir daboolmay Anna waxay isku dayaysaa inay albaabka furto si ay uga baxaan laakiin ma furmaya iyadoona miir daboolmaysa waxaa aragnaa inuu qof u soo galay isagoona badbaadinay labadoodaba waana ninkii loo soo diray Anna si uu badbaadiyo kadib wuxuu ku dadaalaa siduu Jian u soo maaxin lahaa waana soo maaxaya iyadoo Anna wiilkeeda u sheegtaa inay jeceshahay askarigan wuxuu ka duubaa Anna iyo wiilkeeda isagoona tusaya kumbanigii soo diray isagoona uu sheegay inay nabad qabaan labadoodaba ninkan wax lagu magacaabaa San Hincho inaguna waxaan soo gaabsanaa Jo waxaan uu sheegaa inuu kumbaniga wax yar kadib soo gaari doono dabaqa sare halkaas ay ku sugayaan helikabtar kadib Jo Anna ayuu ku dhahaa soo dhaqso helikabtarta ayaa halka sare nagu sugaysa Anna waxay weydiisaa maxay u dhanaanay biyaha roobku Jona wuxuu sheegaa in biyihii roobkaan ahayn ay yihiin kuwii badda kuwaas wax ku soo dhaceen badda waxaan uu sheegay in dunidu dhammaanayso wana sababta adiga loogu baahayay markaasna waxaa ogaanaa Anna inay ka shaqayso kumbani bacrimiya carruurta kuwaasoo ku xidha caqliga artificial intelligence amba AI-ga kuwaasoo wax dareemi kara waxna jeclaan kara waxaanu Jo xasuusiyaa in horadiyada iyo saaxiibadeed ay u sameeyeen ilmo macrimisa taasoo saaxiibadeed lagu magacaabo Hiyanmu Jona wuxuu sheegaa in marka hore loo diray saaxiibadeed laakiin wuxuu raadiyaba uu waayaa waxaana ogaaday inay dhimatay waxaan uu sheegay hadda Anna in iyadu tahay rajadii u dambeysay dunida taasoo la doonayo inay bacrimiso ilmo kale Jona wuxuu sheegay maadaama dunidu dhammaa tahay in la rabo in la bacrimiyo hooyooyin iyo aabayaal waxaas dhoodhna waxaa qabanaya waa adiga kadib wiilkeeda ayaa ku dhahaa hooyo caloosha ayaa xanuunaysa waxayna la soo gaaraysaa musqusha kadib Anna waxaa aragnaa iyadoo la hadlaysa hooyadeed waxayna hooyadu sheegtaa in biyuhu soo gaadheen hooyadeedna waxay u sheegaysaa in rajo dhigtay waxaana kale u sheegtaa inay saaran tahay dabaqa u sareeya kaasoo mar dhow ay soo gaari rabaan biyuhu Anna hooyadeedna iyadoo maqlaysa ayay biyihii qaadayaan kadib waxay dareemayaan in gaaska gurigu qarxi rabo kuwaasoo ay biyuhu cadaadis ku hayaan kadib waxay ka soo baxaan guriga markay soo baxaanna waxaaba dhacaya qarax kuwaasoo ay sababeen tumbooyinka gaasku kadib waxaa ka soo xidhan waddadii Jona wuxuu fulaa dabaqa ka sareeya kaasuu rabo inuu soo fuushiyo Anna iyo Jian markuu Jian qabtana Anna way dhacdaa laakiin Anna way taqaana dabaasha waana isbadbaadinaysaa iyadoona bahashar soo qabsataa kadib Anna waxay maqlaysaa ilmo yar codkiisa waxaana aragtaa in wiisha ku dhex jirto iyadoona leh eeday badbaadiyey leerkii wiishkanu iga damay biyuhuna waxay ugu soo gelayaan gudaha laakiin Anna way awoodi waayeysaa inay furto waxaana ku soo dhacaya hir weyn kaasoo Anna qaadaa waxayna gelaysaa xasuus kale taasoo ah markii shirka ay galeen Anna markaa waxay ku guulaysataa inay ka soo baxdo gaadhiga waxayna doonaysaa inay ka soo saarto ninkeeda laakiin wuxuu dhahaa waan fiicanay wiilka iga hor saar isaguna markuu soo baxsado meel ayaa qabsataa isaguna xaggaas naftiisa ku waya Anna shilkan xasuus weyn ayuu qalbigeeda ku sababay kadib waxay soo raacdaa jaranjarta waxaana ka hor imaanaya Jo isaguna uu sheegaya in wiilkeeda xanuunsanayo irbadihii adiru laheedna waxaa ka qaaday biyaha kadib waxay la soo gelaysaa xaafadan iyadoona u sheegtaa in caawimaad ka rabto waxayna raadinaysaa cabitaan taasoo hesha waxayna ka buuxisaa sonkor waana markaannu ogaano in Jian uu qabo xanuun
xanuunka macaanka hoosta u dhaca kadib aana waxay gashaa xasuus iyadana u tagtaa saaxiibteed hiyaanmu waxaana ku tiraahdaa saaxiibteed anigu ma malaynaya inuu hooyo noqon karo sidaas darteedna waxay la fiican in qolada shaybaarku ay la wareegaan wiilkan hiyaanmuna waxay ku tiraahdaa waxaad ka cabsanaysaa in wiilkaaga jacayl iyadoo qaado laakiin iska sug dowladdu way ku imaanaysaa waana la wareegaysaa jiyaan iyo gabadhayda yoojin kadib oo markaan ogaanano in mar hore ay u dhiibtay dowladdu borojogtii kuwaas lagu bacriminayay ilmo yarar kuwaasoo ku shaqaynaya maskaxda macmalka ilmahana sheegayaan waaba labadooda ilmo ee kala haystaan goordhowna dowladdu way ka qaadanaysaa sababtoo ah waxaa loogu talagalay inay koriyaan wixii ka dambeeyana dowladda ayaa ku danaysan doontaa iyaguna maanay moodaya inay saasoo dhan u jeclaanayaan oo agtooda ay farxad ku dareemayaan kadib xasuustii way ka soo noqotaa markuu soo maaxo wiilkeeda kadib aana wax aragtaa ayuu soo baxaysaa sababtoo ah saacado badan may arkin cadeed laakiin jo ayaa ku dhahaa rajo badan yaanay ku gelin cabaar kadib way laabanaysaa cadeedu waxaanuu sheegaa inay tegayaan dabaqa u sareeya taasoo ku dhahtaa rajada kiyata dunidana waa adiga waxaanuu sheegaa oo kale in lagala wareegayo jiyaan kaasoo loo baahan yahay maskaxdiisa si dad kale looga sameeyo waxaana ku idhahdaa juwa waxa kaloo aan eegaya hooyadu siday noqoto markay wiilkeeda dhiibayso sababtoo ah hooyadii marka anigii dhiibaysay wax jixan wejigeeda kama arag juwanna waxaa ogaanaa inuu la mid yahay jiyaan kadib intay sii socdeen aana wax aragtaa gabadh dhalaysaa manay awoodin inay ka dhaliso sababtaa waqtiga ku yar juwanna waxuu ku dhahaa hore u soo soco kadib waxaa aragnaa jiyaan oo ku leh hooya iga raali noqo aanana wax weydiisaa sababtaa waxaana ku dhahaa markaad dhiibaysay sidaas ayaad ila soo rafaaday saaxiibeel innagana ma jira qof maalin hooyadii ku dhahay hooya xanuunka 9 bilood ila soo maraysay waan kaa raali gelinayaa maadaama hooyinkeena ila soo mareen 9 bilood oo culaysa kadib aana waxay dhigaysaa jiyaan way ooysaa kadib waxay caawimaad weydiistaa jo iyaduna uu sheegtay in raacayso laakiin waxay ku tiraahdaa iga ballan qaad in wiilkaygii raacayo oo aan maskaxdiisa la qaadanin haddayna dowladdu doonayso ilmo saga la mid ah aniga ayaa u bacrimaya isaguna wuxuu ku dhahaa waa balan waxaanay gaadhaan dabaqa sare kuwaasay ku sugeen ciidankii ninka ugu sarreeyana waxaa dhaca kiin isaguna juu amra inuu baxo maadaamuu shaqadiisa dhammaystay aanana waxa dhacay waxay ka baqaysay waxaana arkaysaa in wiilkeeda laga qaadanayo si maskaxda looga saaro aanana waxay baraysaa kim iyadana u sheegtaa in carruur kale u bacriminayso laakiin aanay taaban wiilkeeda laakiin kim kama aqbalayo waxaas waxaana ku dhigtaa jo iyaduna ku tiraahdaa soo balaniga maad qaaday isaguna wuxuu sheegaa in iyadu wiilkeedu bixisay sababtoo ah markii meesha ay joogtay ay ciidanka ugu yeedhay oo uu sheegtay in loogu imaado in khalad weyn ay samaysay ay ahayd midda kale waxaad hore u seexday in wiilka lagaala wareego waanu ka dhaqaaqaya kadib weli waxaa aragnaa iyadoo kim si xun u baryaysa kimna wuxuu ku dhahaa waan ogahay inaad si fiican wax u baclimiso laakiin wiilkan maskaxdiisa hadda waxaan ka soo saaraynaa dad badan waxaana haladan maqashaa xabad waxaana aragtaa jo oo la dilay kadib kim wuxuu ku dhahaa waad aragtaa tusaalaha dunida dadka joogana sidan ayay u baabaayaan waxaana jaanis loo siinayaa fursad u doomisay kula kulmisay wiilkeeda kadib waxay gelisaa laabta waxaana u sheegtaa wax laakiin ma ogaano waxa u sheegto kadibna aana ka tagtaa waxaana aragnaa in dunida ay qariyeen biyo waxaana helikabta tala saarnaa maskaxdii wiilkeeda kadib waxaa aragnaa qolada shaybaarka oo loo diyaariyey dayax gacmeed kuwaasaynu aragno inay ku soo socdaan biyo aad u badan kadib kabtanka dayax gacmeedka ayaa ana ku dhahaa waxaan jecelay inaad si dacdayga la shaqayso bacriminta waxaan u sheegaya inay qolada shaybaarku ay yihiin dadka saaran dayax gacmeedka marka laga reebo baylotyada waxaan u sheegaa inay bacrimin badan sameeyeen iyagoona raacaya waddada iyagu raaceen dhammaantoodna waa la soo qaaday kuwaasoo saaran waxay bacrimiyeen 7 dayax gacmeed oo kala duwan kadib dayax gacmeedkoodii waxaa ku soo dhacaya dayax gacmeed kale oo burburay hal marna waqtiga ayaa soo celinaya waxaan aragnaa wiilkeedii jinyaan oo hooyadii ku leh hooyo gurigeena biyo badan ayaa soo galay waxaana aragnaa nambar ku qoran garankeeda kaasoo xagga dambe aan ku ogaan doono wuxuu yahay waxaana soo waca jo kaasoo sheega inuu yahay askari loo soo diray si uu iyada u badbaadiyo kadib waxaan aragnaa wiilkeedoo ku leh hooyo xal waxaan kuryooday kaalileeg aanana ma dhegaysato kadibna waxay soo qaadaa daawadii wiilkeeda waxaana wiilkeeda ugu tagtaa isagoo armaajada ku dhex jira waanu ka xanaaqsanaa waxaanu hooyadii aana ku idhaahdaa hooyo waa maxay sababtan u jiro mar kasta 6 sano waxaana ku tiraahdaa anaa kuu sharxaya mar kale ee iminkana mari waxaana dhacaya wax kastoo hore uun aragnay aana hadda wax kasta u ogaatay waxaana xagga sare ka aritaa jo waana ka dhuumataa waxaana yimaada hir weyn kaasoo qaadaa waxaanay badbaadinaysaa wiilkeeda waxaanay soo saartaa dabaqa markii soo kortana waxay waayaysaa wiilkeedii wayna raadinaysaa markaana waxaa qaadaya biyaha waxaana aragtaa wiilkeeda oo biyaha ku dhex rafanaya intay badbaadiskiisa ku jirtay geed ayaa xidha kaasoo ka qaadaya macal daawadii waxaana heshaa muraayadii dabaasha ee wiilkeeda waxaana xasuustaa wixii hore mustaqbalka ka dhacay xitaa markaana way haystay muraayadda hal marna wax istaaga waqtiga waxaana aragnaa jo oo soo maaxinaya ahna nambarkii gareenkeeda ku qornaana wuu isbedelay waxaana ku qoran hadda 787 waxaana mar kale isku dayaysaa inay raadiso wiilkeeda laakiin wuxuu tusaa jo xaggu
markii ugu dambeysay marayay waana guriga hadda ka hor uu galayay aanana waa xasuustaa guriga joona wuxuu sheegaa inay daahsan yihiin islamarkaana waa inaan baxno wiilkaagana waxaa raadinaya sakuuradiga aanana waxay kala boodaa baaskooradiisa waxaanay ku tiraahdaa ii sheeg meeshaad wiilkayga geysay hal marna waxaa qarxaya gaaska waxaan aragnaa aan oo mar kale ka dhacaysa dabaqa waxaana badbaadinaya jo hal marna waxaan aragnaa inuu isbedelay mar kale nambarkii garankeeda ku qornaa waxaana ku qornaa 930 kadib jo ayaa ku dhaha waan kugu dhaarana wiilkaagii meel kuma ogi kadibna aanan gacantiisa way sii dinaysaa waxaana ku dul dhacdaa biyaha kadib waxaan aragnaa inay mar kale maqashay gabadh yareed waxaan u sheegtaa inay markii hore badbaadin weyday balse hadday badbaadin doonto waxaan aragnaa in aana biyihii quusiyan markana way ka awood bateen waana dhimatay haddaba mar kale waxaa isbedelaa wakhtiga waxaanay soo qaadataa qori si ay ugu furto wiishka markanna waxaan aragnaa in mar kale isbedelay nambarkii kaasoo ku qoray hadda 4,007 ugu dambayna way soo badbaadisay gabadh yareed waxaan u sheegtaa inay hadda ka hor ay la kulantay awowgeed waxaana ku tiraahdaa waa hubaal dabaqii marka hore aan ku arkay inuu haddana joogo gabadha yarna waxay ku tiraahdaa hore maan isku naqaanay midda kale sideed ku ogaatay awowaha iyo ayidii aanana waxa u sheegtaa in iyaduba fahmi leedahay waxa dhacaya waxna keentaa dabaqii degnaayeen awowaheed waxaana u sheegtaa in wiil yar ka maqan yahay waxaanu jiray 6 sano sidoo kale waxaana u sheegtaa dad aragto inay hooyadii jeceshahay kadib markay baxdo waxa u yeedhaa gabadh dheer waxaana galaan guriga waxaana u sheegtaa waqtigii ay wiisha ku xidhnayd inay maqlaysay rag fuudaynaya wiil yar kuwaasoo rabay inuu u sheego baasuurka guriga kaasi ka soo horjeeday wiishkaan saarnaa isaguna wuxuu ku dhahaa ma garanayo waxaanay ka jareen dhowr dhurbaaxaan oo maqlaya waana isaga tegeen aanan islaanta waxay siisaa hadda ka hor sharaabkii ay siinaysay wiilkeeda waxaana aana ku tiraahdaa sidee ku ogaatay laakiin islaanta uma jawaabto waxaana ka soo horbaxaa nimankii tuugada ahaa kuwaasoo weerar ku soo qaada aana waxaana imaanaya jooya inantiireed joona u qaraacaya waxaanu weydiinaya kii u dambeeyey wiilkii laakiin ma arag ayuu ku idhaahdaa waxaana ku tuuraa biyaha aanana way fikiraysaa iyadoona soo xasuustaa wixii hore waxaana is tiraahdaa aamu wiilkaaga macaankii hoos u dhacay waxaana ku soo laabataa gurigii gabadha yar waxaana ogaanaysaa gabadha yar inay wiilkeeda isku mid yihiin iyadoona qabta macaanka hoosta u dhaca waxaana u sheegtaa inay hore u raacdo laakiin cunugta yar waxay ku tiraahdaa kama tegi karo awowahay waxaana aana ogaataa inay cunugta yar tahay cunugtii la bacrimiyey ay saaxiibadeed haystay faamilkana uu yahay faamilkeedii kadib guriga markay ka soo baxdo joy ayaa u sheega in qoladii shaybaarka ay soo wacayeen isaga iyaguna xagga sare ku sugaya joona wuxuu ku dhahaa namar soo bax aanna waxay soo xasuustaa xasuusihii markii hore ee laga qaadanayay wiilkeeda mana rabto inay waxaana dhacaan mar kale waxaana ku tiraahdaa waxaan u malaynayaa in wiilkay macaankii hoos u dhacay waxaanay rabtaa inay raadiso wiilkeeda laakiin way daalaysaa waxaana jo u sheegtaa in wiilkeeda u badbaadiyo mana rabo in wiilkayga mar kale aan dhiibo sidii adiga hooyada ku dhiibtay oo kale isagana wuxuu ku dhahaa waxaan oo dhan sida ku ogaatay aanna waxa u sheegtay inuu wax walba xasuusto laakiin adigu waxba ma xasuustid ay ku tiraahdaa markaan waxaa ogaanaa markii hore dayaxgacmeedka saarnaayeen inay sameeyeen hooyo dagaalamisa wiilkeeda taasna waa la sameeyey oo waa lagu guulaystay hooyadan sheegayna la sameeyena waa aanada hadda arkaynana waa mid ku shaqaynaysa maskaxda macmalka ah markaana waxaa isbedelaa nambarkii ku qornaa garankeeda nambarkana wuxuu ka dhigan yahay mar kastoo ay guuldaraysato in nambarkeedu isbedelayo ama mar kastoo ay dib u soo laabto in nambarkeedu isbedelayo waad fahanteen ayaan jecelahay waxaan aragnaa in nambarka isku bedelay 7,993 waxaan arkaysaa mar kale hooyadii dhalisay taasoo iminka ay dhashay cunug waxaana siisaa jaakeedkeedii maadaama ay qabow ahayd markay ka soo socotana waxaa soo dhaafaa ninkeedii taasoo dib u soo eegtaa waxaana xaaskiisa u sheegtaa inay xalay ku riyootay dhagax ka soo dhacaya cirka aanna waxaa xasuustaa milka wiilkeeda ku lahaa hooya xalay waxaan ku riyooday ayaan sawir kaalay la fiiri markay diidana wuxuu u sheegayaa in moolkeeda ugu soo diray kadib aanna waxay la soo baxdaa moolkeeda taasoo aragta helikabtartee lagu qaaday iyadii iyo maskaxda wiilkeeda wax kastoo sawirayna waa wax dhacay kadibna waxaa xasuustaa in wiilkeedu markuu xanaaqo uu galo armaanjooyinka taasoo ka soo raadinaysa mid walba hal marna waxay timaadaa dabiqii ugu sareeyey kaasoo ay qabtaan ciidankii shaybaadhku waxaana yimaadaa joo isagana u sheegaya inay qaadaan waxaanu yidhaahdaa haddii waajibaadkayga uu dhammaaday aana iyadoo sii suuxi rabtaa waxay u sheegtaa inay dili doonaan markuu tago dabaqa sare isagana wuxuu xasuustaa wax walba waanu la dagaalayaa nimankii kaasoo ay disho ninkii u dambeeyey aana waxaanu ku mudaya aana irbad ka soo kicinaysaa suuxitaanka kadib joo wuxuu weydiiyaa sidan waxaan ku dhacay waxaan u sheegtaa iminka wax kastoo dhacaya inuu hore u dhacay sababtoo ah waa wada bargaraamsannahay dhammaanteen joona wuxuu weydiiyaa sababtu wax walba uu hilmaamayo waxaana u sheegtaa in isaga qolada shaybaarku ay ka rimuuf garaynayaan wax walba waxaana u sheegtaa inay dhammaantood ku shaqaynayaan ee ay brogaraamkana dadka sameeyey waxaa ka mid ahaa aniga waxaana u dagaalamayay sidaan uga bixi lahaa hadda waxaana u sheegtaa in markastoo ay soo laabato uu ka dhuumanayo wiilkeedii waxaanu ku dhuumanaya armaajooyinka waxaanu malaynaya wiilkaygu inuu dhiibayo qolada shaybaarka anigu joona wuxuu ku dhahaa markaan ka xanaaqi jiray hooyadii waxaan ku dhuuman jiray armaajooyinka waxaana sugi jiray inta ay imaanayso wiilkaaguna hadda waxaa laga yaabaa inuu ku sugayo inaad adigu u tagto aanna waxay biloobaysaa inay raadiso wiilkeeda kadib askar ayaa soo weeraraysaa dhammaantoodna waxaa qaada biyaha aanna waxay kaga soo badbaadaysaa dabaal maadaama ay taqaano dabaasha waxaanay timaadda dabaqa ugu sareeya halkaasna waxay ku aragtaa armaajo marka furtana waxaa aragtaa wiilkeeda oo macaanku dhacay
waxaana siinaysaa sharaabkii hore u soo dhiibtay islaantu waxaana aana wiilkeeda ku tiraahdaa wiilkaygii si kay caafi ma rabin inaan ku dhiibo wiilkeedana wuxuu ku dhahaa hooyo adigii maad dhiibin madi lowday markaadii laheed armajada gadaal taala gal anaana kugu imaanaya xaggaas ma xasuustid hooya miyaa aanana way xasuusanaysaa markii ay dhigta wax ugu sheegaysay ayay ku tiri hadalkaa aanana way xasuustaa haddaba anaa ninka dabageeyo siday ku noqotay ee ay markii uu dayaxgacmeedka ku soo dhacay dayaxgacmeedka kale waxa aana soo gaadh dhaawac weyn iyadii dadkii la saarnaaba aanana waxayd qofkii dumarka ah ee badbaaday waxaanay tiri tijaabada la samaynayo aniga haliigu sameeyo aniga ayuu qofkayga maqan yahay waxaana rabaa ina raadiyo qofkayga maqan waana wiilkeeda ka maqan iyada waana laga ogolaanaya waxaan la biloobaya in la brogaraamyo si ay u hesho wiilkeeda ugu dambaynna way heshaan aana maadaama ahayd dadkii sameeyey brogaraamka hadda waxay rabtaa in iska saaraan iyo wiilkeeduba kadib waxaan ragnaa inay soo weerareen askartii shaybaarka wiilkeedana waxay ka jeedinaysaa askarta waxaana u sheegtaa inay rabaan inay badbaadaan wiilkeedana wuxuu ku tuuraa badda iyadana waxaa u suurtooba inay taabato badtan yar oo ay haysay inay taabato waxaana hal mar istaagaya wax walba oo ku shaqaynaya ee ay aanana waxay isku tuuraysaa biyihii hadda aniyo wiilkeeda bay ka baxeen ee aynimadii maadaama aanay dhulka noolol ka jirinna waxay ku noolaanayaan dayaxgacmeedka filmkiina xaggaas ay ku soo dhammaaday filmkiina waxaa lagu magacaabaa The Great Flood haddaad muuqaalkiina like saar haddaad channelka ku cusubtina ugu soo biir soo noqod wanaagsan